Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Bahda Aqoonyahan Academy fiidiyowyeenan aan uga warramayna isdiiwaangelinta imtixaanka 12aad. Halkan waxaan kusoo gudbinaynaa cashar ku saabsan sida la isku diiwaangeliyo fasalka 12aad foomkiisa. Ugu horreyn page-ka waxaa tagaysaa page-kan ayaa tagaysaa wasaaradda ay leedahay qiimeynta waxbarashada. Marka page-ka kaas weeyaan, kadib linkigaas ku dhufanaysaa. Linkiga markaa ku dhufatid baa waxaa u gudbaysaa private candidate registration. Halkaas ay ku qoran tahay private candidate. Marka ardayga hadduu private yahay, iskuul private uu ka socdo bay khusaysaa, laakiin iskuullada kale ee dowladdu waa caadi. Halkaa markaa tahay waxaa click ku siinaysaa, waxaa ku soo baxay apply now, iyadaa ku dhufanaysaa. Apply now markaa ku dhufatid foomka qaybahan dambe waa iska sii akhrinaysaa, dhib male. Dukumentiyada lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay admission numberka sanadkaa gashay iyo sawir magacaaga oo buuxa, waxyaalahaas oo kale weeyaan. Waxyaalo kale oo iyagu waxaa iska jira faahfaahinta footada iyo certificate-ka, waxyaalahaas oo dhan waa inay scan yihiin oo scan kasoo dhigtaa weeye ardayga gaar ahaan isdiiwaangelinaya foomka ee iskuulka private-ka ka socda. Kadib intaa markaan isla aragnay, halkaas ayaa ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay fallaarta cagaaran. Inaad ku dhufto halkaan ku soo saaraya first name, magaca koobaad geli, magacaaga koobaad waa magaca koobaad adigu aad leedahay. Axmed oo kale haddaan ka dhigno Axmed baad gelinaysaa. Magaca aabaha haddaan tusaale aan ka dhigno jaamac baa ka dhigaysaa. Magacaagan hadduu daahir yahay, daahir baa ka dhigaysaa. Kadib haddii magacaaga aad beddeshay, waxaa ku qoraysaa I have changed my name. Haddaadan beddelin sidaas uga tagaysaa adoo waxaan ku dhufan. Laakiin haddaad beddeshay waa inaadna change name aad ku dhufataa, kadibna magaca waxa weeyaan aad waraaq wadataa. Saas uga gudbisaa nambarka da'daada, age waa da'daada gelinaysaa 21 ka dhig tusaale ahaan. Halkan waxa weeyaan ninna ka yaabata gender female male. Halkan disability waxa weeyaan calaannimo, qofku in maarta meel ka xanuunsan yahay. Ida normal baan ahay, ma xanuunsani baa oranaysaa. Nationality waa Ethiopian by default, isaga ku soo qabanaya. Admission type-kan waa regular oo private ah. Kadib waxaa halkaas inta markii la joogo waxaa ku xiga stream waa fieldiga. Natural science aan ka dhigano tusaale ahaan, fieldiga aad rabtay inaad baratid waa kasii gudbisaa examination year, sanadka imtixaanka aad qaadatay. Sanado badan buu halkan kugu soo taxayaa, sanadkii 2016, 15, 12 waxaas oo dhan. Marka 2016 aan ka dhigno type registration number here. Halkan waxaa gelinaysaa registration number baad gelinaysaa. Registration number marka aad gelisid waxa weeyaan waxaa ku soo baxaysa. Kadib iskuulka ayaad ku qoraysaa magaciisa. Iskuulka Jigjiga oo kale haddaan ka dhigno Jigjiga High School. Kadib emailkaaga ayaa halkaa gelinaysaa. Email haddaad rabtid waa ka gudbi kartaa. Magacaaga marka emailkaaga markaa gelisid, nambarkaaga, telefoon nambarkaaga. Kadib waxaa ku dhufanaysaa fallaartaas ayaa hore u socota, baa ku dhufanaysaa. Kadib waxaa ku soo baxaya magacaagii sanadka isdiiwaangelisay, admission kaarkaagii, nambarkaagii. Kadib waxaa halkan ku oranaysaa region, deegaanka ka soo jeedid waa family address, meesha aad ka soo jeedid cinwaankeeda weeye. Marka Soomaali baan ka soo jeednaa, macnaha gobolka tusaale Faafan ka soo dhig. Faafan inaad tahay, magaaladuna ay tahay Jigjiga, magaalada macnaha ay tahay Jigjiga. Intaa kadib father information awowga, magaca awowga baa halkan gelinaysaa oo buuxa. Tusaale jaamac baa ahaa awowga, magaca marka awowga tusaale ahaan daahir oo kale. Daahir Cabdi Cali. shaqadiisu ay tahay
marka daahir awowga maahan waa halkan waxaa gelinaysa magaca aabbaha oo buuxa. Tusaale aabbaha ama magaciisu jaamac daahir oo kale, jaamac daahir baa oranaysa, jaamac daahir. kadib halkaa wuxuu qabto shaqada merchant waa ganacsade. kadibna hooyada magaceeda oo buuxa Xaawo Cali, tusaale haddaan kale magac buuxa, iyaduna farmer ka dhig inay tahay. ama markaa jaamac daahir marka halkan yar wuu diidan yahay, laakiin waxa kale kusii dari kartaa Cali baa kusii dari kartaa. halkaa marka merchant weeyaan. kadib waa ka gudbaynaa magaca hooyada oo buuxa waxa weeyaan Cabdi, farmer weeyaan. kadib marka inta aad dhamaysid baa waxaa ku dhufanaysaa falaarta cagaarneed ee midigta ahayd. magacaaga iyo sawirkaaga wax oo dhan baa kusoo baxaya. kadib marka inta aad dhamaysay adana halkaa waxaa gelinaysa waxa la yidhaahdo verification code ayaa gelinaysa. marka verification codeka waxaa SMS-ka ay kugu soo dirayaan. SMS-ka markay kugu soo diraan SMS-kaaga ayaa tegaysaa. markaad tagtidna kadib waxaa kusoo baxaysa success, your request has been saved successfully baa kusoo baxaysa. intaa kadib waxaa sameynaysaa dokumentiyadaadii saddexda dokumenti ahaa ilaa 4 dokumenti ayaa soo upload garaysanaysaa oo keensanaysaa. dokumentiga marka halkan no file, tusaale halkan oo kale waxaa laga rabaa photo, sawirkii baa laga rabaa. photoga marka tusaale ahaan halkan oo kale ka soo qaadanay inaan gelinay photoga waan gelinay. halkan dokumentiga waa laga rabaa waxyaalaha dokumentiga certificate-ka oo kale iyadana qaadaysa. sidoo kale halkan original certificate baa laga rabaa, original certificate shahaadadii 12aadka ee sanadka hore soo qaad ka dhig. halkan sidoo kale maxay waa magaca hadaad bedeshay, magacii maanan bedelin waan ka gudbaynaa iyada. marka halkan school support letter baa ka soo qaadanay iskuulka waraaq uu ku qoray inaad adduunka dhamaysay. kadibna saasaa ku dhamaynayna. halkan markii aan joogno waxaa ku dhufanaysaa falaartaas ayaad ku dhufanaysaa. kadibna wuxuu ku leeyahay your request has been saved successfully. kadib wuxuu kusoo gudbinayaa intaan yarta meesha imtixaanka ku qaadanaysa. imtixaanka meesha ku qaadanayo waa Somali region. zoonka waa faafan. marka hore aan dooranay Jigjiga Somali region. meelo kale waa dooran kartaa haddaad rabtid, oo barra doona kula jirnaad dooran kartaa waxyaalahaas kale. degmada marka waxa weeyaan Jigjiga ayaan ka dhignay marka hore, haddana Jigjiga ka dhigaynaa. exam centerka laakiin xagee waa Jigjiga. exam centerka by default exam centerka hadda faafan dooratay saas buu leeyahay gaarka. kadib informationka hoose ayuu halkaan nooga soo qabanaya magacii iyo wixii iyo buuxa oo qofku xilligu isdiiwaan geliyay waxaasoo dhan. halkaa markaad joogtid yaad waxaa ku dhufanaysaa next meeshaas falaartii baa kusii dhufanaysaa. waiting for approval buu ku leeyahay. lacagta baa ku harsan oo 750 bir ah. ma ambayd buu ku leeyahay, lama bixin. order koorkuna waxa weeyaan 9 kaas weeyaan order koorku. order date-kuna waa kaas. marka waiting for approval ansixin ayuu sugayaa. marka adigu isdiiwaan gelisay laakiin lacagta ayaa ka dhiman. waxaa dhiman kaliya lacagta. iyaga waxay kuu soo diri doonaan marka fariin bay kuu soo diri doonaan. fariintaas oo ah sida qaabka aad ku bixin kartid. we will let you know via SMS once your request is approved. marka waxaan ku weydiin doonaa SMS baan kugu weydiin doonaa. review bay ku sameynayaan waxa inaa qalday. marka kadibna way iska sugaysaa. saas oo ardayga uu isku diiwaan gelin karaa fasalka 12aad foomkiisa dugsiga private-ka ka socda. waxaanu idin leenahay maalin wacan, imtixaan wanaagsan iyo sidoo kale wanaagsan. fadlan haddaad ku cusub tahay page-ka ama aad ku cusub tahay YouTube-ka iyaga subscribe iyo like noo saar. isla markaana ku xirnow waxyaalaha kale aan soo gudbin doono halkaan ku soo gudbinayno. sidaas iyo nabadgelyo.